dambeyn inaan maanta dhex fadhiyo maantay oo ah maalin khamiisa bishuna ay tahay 31 haddaan khaldanayn 31 bishii saddexaad 2016 shirkii nabadeynta ahaa iyo gogoshii muddada taalay magaalada Dharjaalle ee labada beelood ee walaalaha ah ay isugu yimaadeen aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloo ka mahad celinayaa shirka in la igu casumo oo la igu marti qaado iyadana oo ka mahad celinayaa taariikhda waxa laga dhaxlaa oo laga faa'iidaa waxay tahay wixii soo maray oo wanaag ahna in lagu daydo oo la ilaaliyo oo dib loo raadiyo wixii khaldan oo taariikhda soo marayna in laga taxadaro oo laga digtoonaado waxaynu wada ognahay dhalashada ka sokow labada reer waa laba reer oo wada dhashay oo hal biyo ku wada abtirsanaya dhalashada ka sokow haddana waxaa jiray xiriir badan oo hadday tahay deegaanka Soomaalidu atay hore u tiri oo de abka dhow marba waxaa jira nin walaalkaayo kula dhashay laakiin aydan wada dhaqmin oo aad kala fogtihiin waxa kaaga soo kamaraya kan kula dhaqmay oo jiiraanka ah oo deris wadaaga ah tihiin oo ooda iyo wadada iyo ceelka iyo colka iyo kulli aad wadaagtaan diinta iyo shariicaduna waa tilmaantay waxa weeye arrintaas waxaa la yaqaanay taariikh wanaagsan oo qurux badan oo bilowgeedii ilaa iyo dhammaanteed ku qorayd baaldahaba ku qoray taariikhda kaga qorayd labada reer dhalashada marka laga yimaado waxay lahaayeen xulufaysi waxay lahaayeen wax wada qabsi cadowga hal meel bay uga soo wada jeedeen waxay lahaayeen isgarabsi dhinac walba marka laga fiiriyo xitaa dhinaca siyaasadeed raggu waa wada xogagaal rag badan oo taariikhda iga badiya waa meesha fadhiya arrintaas waxaa la rabaa wixii hadeerka soo gaaray oo jirana in la adkeeyo taariikhda wanaagsan wixii ayaamihii dayaca ahaa iyo ina soo marayna in la tirtiro oo la soo celiyo xulufaysigii iyo iskaashigii iyo wax wada doonadkii iyo deegaan wada difaacii iyo cadowga meel looga soo wada jeeday in la ilaaliyo oo dib loo saxo waxaadna ogaataan waa mas'uuliyad maanta inteena halkaa fadhida ina wada saaran taariikhda wanaagsan oo aynu ama soo gaarnay ama sheekadeeda soo gaarnay haddaynu soo celin weyno waa mas'uuliyad berrita layna weydiinayo maantay dadka hadeer jooga taladooda waxbaynu ku leenahay haddaynu dhinaca san oo wanaagsan u talin weyno oo dhinaca san u kaxayn weynana berrito ilaahay hortiisana waa layna weydiin doonaa taariikhduna wayna weydiinaysaa waxa aynu dhaxal siinayno xumaha iyo waxa aan fiicnayna waxay noqonayaan dhasheena anigu ma joogin aad baan uga xumahay shirkii dambe oo uu madaxweyne ku-xigeenku Camay uu joogay oo la isugu yimi inay meegaaga ahayd baan u malaynayaa gaalmaal halkaa la isugu yimi waxaan daawaday video clipkii aad iyo aad baan waxaan u qiirooday laba gabdhood oo halkaa buraanbur aad u qiimo badan ka akhriyay weliba gabadhii markii hore akhrisay buraanburkii dheeraa oo ka sheekaynaysay taariikhda la soo maray iyo gabdhihii inay dhalmadaayeen oo raggii qarka galeen oo dhibaatada iyo taariikhda dheer ka sheekaysay aad baan uga qiirooday waxaad moodaa xilliga aynu joogno sideedaba waa xilli fitan oo xumuhu mar walba ka qaalib noqonayo wanaagga xilligaa dhibka badan baynu joognaa wixii samaa oo wanaagsanaana waxun loo arko rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inuu iman doono waxyaabaha akhir zamaanka iman doona ay ka mid tahay wixii xumaana dadku waxsan u arkaan baynu joognaa maanta dadka wanaagga ka talinaya waxaa loo arkaa sharwadayaal
waxaa loo arkaa niman dibdhac wada, waxaa loo arkaa niman fulaya ah, waxaa loo arkaa niman raba inay dadka ay ka dhasheen inay la haraan raba. ninka sharwadaha ah oo ku talinaya dadka in la laayo, ceelasha in la gubo, guryaha in la gubo, maatada la qaxiyo, ninkaana waxaa loo arkaa nin geesi ah oo haliyey ah oo magac iyo sumcad beesha usoo jeedinaya. waxaa laynaga rabaa ninka saa wax u biinaya inaynu iska qaban karno. waxa ugu sahlan oo waxaa weeye qofka bini aadamka ah suu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, xumaha meesha ugu fogu ka istaagi karo inuu qalbiga ka naco. inta ka horeysa istaabiyadii ay lahayd oo dhan markii aynu gacanta ku qaban karno inaynu ku qabanna, markaynu carabka ku sheegi karno, marka ugu dambeysana qalbiga laga naco. rag badan oo mas-uuliyiina fadhiya, xildhibaanaha fadhiya. hawsha maantay intaasi ay xallin weyday waxay ila tahay cid kaloo laga sugayaa ma jirto. wax maanta la isku hayo oo dhibaato ah ma jiraan. isfaham la-aan baa jirta. isfaham la-aantu waxay u baahan tahay si degan oo niyad sami leh in lagu xaliyo, oo daacadnimo iyo qalbi furnaan iyo kalsooni ay ku dheehan tahay. shirarka maalmihii hore oo la qabanayay oo loo ballamayay in la qabto oo maqashoonayn, markiina lagu yiri boosaasaa loo wareejinayaa shirka, annagu ma jeclaysan xaqiiqatan, mana aanan soo dhoweyn. waxaa la yidhi weli dadku isma dhexgelin, amni xumaa iman karta, keeraa iman kara. waxaasoo dhan waxaan u arkaynay inay ahayd waxyaabaha wax kala fogeynaya. waxaa la rabaa sida haddeer aa ugu dhiirateen in halka la wada fadhiyo, marar kalena in la tago, deegaanada kale la tago oo beesha Muuse Saleemaan loo tago, iyadu gogasha dhigto oo raggu halkaa habeenna jiifaan, oo hoos loo sheekaysto oo kor loo sheekaysto oo xaafaduhu isdhex galaan. waxaa weeye xilligaynu maantay joogno haddaynaan iskaashan oo cududeenna aynaan midayn oo aynaan cadowga hal iskoob ku wada fiirin, dhammaanteen waxaynu noqonaynaa niman u dayacan oo u nugul cadowga isaga ah. waa la socotaan gobolkanaynu joogno iyo deegaankanaynu joogno, mar walba oo aanu isu nimaano waxaynu tirsanaa dayac fara badan. waxaynu tirsanaa inaynu gobolladii ka harray, waxaynu tirsanaa deegaanadii hormaray inaynu ka harray, waxaynu tirsanaa qabaa'ilka degan waxay tirsadaan qabaa'ilka horumarka siyaasadeed ay gaareen iyagu inay ka hareen, horumarka deegaan ay gaareen ay ka hareen, horumarka isdhexgal ay gaareen inay ka hareen. waxaasoo dhan iskama iman, cilladaha keenay. cilladaha ilaa la suuliyana tegi mayaan. cilladaha keenay waxaa ka mid ah tanaa haddeer u fadhidaan inaad xalisaan, qayb bay ka ahayd. niman wada dhashay oo guri wada degan oo ceelkii iyo wadadii iyo degsiimadii iyo intaba wadaaga, oo haddana isu arkay inay cadow isu yihiin. haddii deegaankaasi ma hormari karo, dadkaasina ma hormari karaan, laysmana dhex geli karo, waa dhibaato. laakiin marka ay taasi baxdo oo ay soo noqoto isdhex markii, oo ay soo noqoto waxwada cunkii, oo ay soo noqoto deegaan wadaagii, waxaa imanaysa marka in loo tashado deegaankan aynu wadaagno, aynu hormarino, aynu ceelal qodno, aynu dhuxul shallagoynaya ka joojino, aynu wadooyin samaysano, aynu maamulka iyo nidaamka jira inagoo isku duuban u tagno oo niraano maxaa naga damacdeen oo deegaanka iyaga ka damacdeen. markaasay soo baxaysaa tashiga iyo wanaagga iyo waxwada qabsigu markaasuu imanaya. taariikho badan oo ayaamihii u dambeeyey ina soo marayay waxay ina dhaxal siiyeen waxa aynu maanta ku aragno deegaanka aynu joogno oo horumar la-aan iyo dib u dhac ah. waxaad wada ogtihiin oo qof walbo hadda halkaa fadhiya uu maqashoon yahay, nimankii halkaa soo maray adduunyaha faraha badan watay inay u socdeen deegaanadeenna, inay u socdeen 6 bilood ka hor ama 5 bilood ka hor qayb iyaga ka mida inay yimaadeen, inaysan dowladdu ka hadlin, inaysan qabaa'ilku ka hadlin, inaysan cidna ka hadlin, dowlad dhaxan ka hadlin,
mid gobol baan ka hadlin, mid federaalaan ka hadlin, cid kalaan ka hadlin. nimankii meesha waa isa siiyeen, ceelashii bay barteen, degsiimadii bay barteen, meelaha dhufayskale barteen, meelaha biyahalay barteen, meelaha looga iman karay barteen, dadkii bay dhex galeen. kadibna qayladhaantoodii waa tii 4 doonyoodoo buuxa la soo diray. 3 doonyoodna waa wada socdeen, doonna gaar bay ka ahayd. marka badda jooga dadka ilaahay ku badbaadiyey. markabkaasaa wuxuu dareemay maraakiibta waxaa saaran qalab detected ah oo lagu ogaan karo masaafada waxaa u soo jira waxa noolaha saaran, oo wuxuu tilmaamayaa signalka wadnaha uu bixiyo. wuxuu ogaan karaa markabkaasi doonta halkaa maraysa inta noole oo saaran 10 wadne 20 wadne, qof 2 wadne lama jiro buu ogaan karaa. waxay ogaadeen doonyaha kan tiro fara badan oo kalluumaysato ka badan oo dadkii caadiga ahaa ka badan inay saaran tahay. inay hubiyaan bay usoo dhaqaaqeen. nimankana waa ka war heleen, raggoodii bay la tashadeen. amar waxaa lagu siiyey 3 doonyoodoo ku beegnaa soona Garaacad iyo Jariiban inay halkaa xeebta kaga degaan. doontii soo dhaaftay oo garmaal ku beegnaydna inay halkaa kaga tagto. hadday dhici lahayd inay 4 doonyood iyo ragga saaran ay soo gudbaan oo degsiimadeenna ay yimaadaan, oo raggii ka horreeyey oo muddada diyaarinayay sahayda iyo saadka diyaarinayay ay ishelaan, ka warrama miisaanku intee la ekaan lahaa. dhibaatadaas dhacda waxay noqon lahayd Toorobooro iyo Afghanistan sidii loola diriray in loola diriro la yiraahdo 1,000 nin oo argagixiso ah oo hubaysan baa waxay galeen deegaanada buuraha bari ku yaala. kadibna la yiraahdo dadka degsiimada degan ha laga guuro, waa la duqeynayaa. deegaankaasi saa ku baabao. awal Bugaari waa iyo deegaan go'an oo aan cidi tagin ahaa, rasmi inuu u go'o. cid allaale ciddii damacda inay soo aadana lagu calaamadiyo la yiraahdo waxay la leeyihiin gacan saar. gaadiidka soo leexanaya laamiga in dhalinyarada laga rogo, in baabuurta la xirxiro, in raashinka loo diido baa iman lahayd. ilaahay subxaanahu watacaala dadkan waa dad iska masaakiina, iska xalaal quuta ah oo xaaraantu kolley waagii hore ku yarayd. dhagartii ay wadeen iyagu ku celiyey, waa tii la jabiyey oo halkaa dhibaatadu ay ka raacday. laakiin mid waa inaynu wada ognahay, nimankani waa niman nidaamkoodu adag yahay, diyaargarowgoodu adag yahay, argoosigoodu dhib badan yahay. niman sahal ku maqan hadeer maaha, qorshay ku maqan yihiin, ku talagal bay ku maqan yihiin. allah u naxariistee waana maqlayseen saakay ninkii wasaaradda maaliyadda gobolka Mudug haystay, gaadayare iyo raggiisii, saafkiisii iyo raggiisiiba inay saakay laayeen. allah u naxariisto intii halkaa ku dhimatay, intii dhaawactayna allah u boogadhayo. qorshahaas iyo kuwo badan oo kale baa inagu soo maqan, oo Puntland ku soo maqan, oo degsiimooyinkeena ku soo maqan, oo ay ku talagalayaan inay meel walba oo dadku joogaan inay gaarsiiyaan. dadkii ka tashan lahaa oo qorshaha ka yeelan lahaa waa dada kan kala erdhoobay, oo colaada la dhex dhigay, oo fitanka la dhex dhigay, oo qaybtood laga yaabo inay qaybta kale ku faraxdo jabkooda oo yiraahdaan daa lug hartay bay noqonayaan. laakiin haddii aan la midoobin oo la iska kaashan oo cadowga dhow iyo ka shishe aan mid loo wada noqon, wallaahi ninba maalin bay ugu imanaysaa gurigiisa, ninba maalin bay degsiimadiisa imanaysaa, ilaa marka dambe bannaan la isugu yimaado. waxaan aad iyo aad aan u taageerayaa anoo ah Cabdisaan Maxamed Gallan wanaagga aa wadaan iyo kalsoonida idinka muuqata iyo sida aadanihiinnii gaarka ahaa intaad mid maamulka ka tirsan iyo mid nabadoon iyo caaqil guud ahaaba iyo mid ganacsada ahaaba dantiisii gaarka ah intuu soo xiray tan guud u soo bambaxay. waa ka mahad celinaynaa, waana idinku taageersannahay. ilaahay idankiina waxaan rajaynaynaa inay dhammaystirmato. wixii annaga nagaga tooboonna diyaar baanu u nahay. talooyinkiina waa qaadanaynaa, waa soo dhawaynaynaa. fikirkiina saliimka waa soo dhawaynaynaa. waxaa loo baahan yahay waxaani inay ka yimaadaan niyad saafi ah, qalbi saafiya inay ka yimaadaan, qalbi saafi ahna ay ku dhacayaan. haddii
waajib aynu iska ridayno keliya aynu u aragno shirka inaynu tagno. shirkan shirar badan baa ka horreeyey, qaybtu intoodii badnaa fashil bay ku dambeeyeen. waa wada ogtihiin, dadaal intaa ka badani ku baxay, dhaqaale intaa ka badani ku baxay, isxilqaan intaa ka badani ku baxay. marka waxaa la odhan karaa sababta ugu badan waxay ahayd niyaddii la rabay maahayn baan anigu odhan karaa. hadday niyaddu saafi tahay oo ikhlaas uu jiro, tira intaa ka yar baa waxay dhexdhexaadisay isu soo jeedaa qoomam dhan oo muddo iyo qarniyo dhibaata ka dhexaysay. hana u fadhinina, hana sugunina horumar iyo wanaag haddaydan idinku midoobin oo gacmihiinna ku doonan oo xuquuqda idinka maqan aydan wada raadsan. ha u sugina.